dabcan haddii aad ka mid tahay dadka isticmaala lacagtan waxaa macquul ah in aad igu raacin fikirkaygan laakiin waxaa muhiim ku ah inaad adigu una qofna xakamin shucuurtaada markaana aad raadisid runta iyo habka ugu wanaagsan ee aad ugu noolaan kartid dhulkan markaan ku sameeyay baaritaan waxa iga soo baxay xogo kala duwan oo aad u foolxun laakiin haddaan kula wadaago in yar oo aad fahmi kartid lana daa aqligaaga kadibna aragtida aad doontid aad ka qaadan doontid aad ka qaadan kartid ama iska tin kartid oo markasta go'aanka adiga ayaa leh ama aad wadi kartid ugu horeyn magaca lacagta ee Bitcoin loona soo gaabiyay BTC ayaynu u baahanaynaa in aan u marno wadooyin kala duwan BTC uma baahna furfurid badan oo waa tirada 3 xaraf laakiin Bitcoin maxay tahay qofka sameeyayna yuu yahay waxaynu adeegsan doonaa inaynu ku furfurno turubka tarot waa ciyaar dadka lagu madadaaliyo oo loo yaqaan turubka tarot tirada 0 waxay ku jirtaa booska doqonka ama dabaalka waxa ayna soo jirtay muddo fog waxay ku dhisan tahay nooc kamid ah sixirka kabaala waxa soo saartay kana qayb qaadatay faafitaankeedii kaniisada fitisanka hadaynu ku horeyno Bitcoin kelmadda Bitcoin waxay ka kooban tahay 7 xaraf tirada 7 turubka tarotka waxa uu matala gaari faraska ayaa u taagan isxakamaynta iyo go'aan qaadashada haddii aynu eegno cidda soo saartay Bitcoin waa Satoshi Nakamoto ayaa isna wuxuu ka kooban yahay 15 xaraf tirada 15 turubka tarotka waxa uu matala shaydaanka ayaa u taagan isaguna damaca badan iyo dusashada labadan tiro marka ay isbiirsadaan ama ay kulmaan waxa isku bedeshaa mid halaag badan maadaama gaari farasku uu yahay is ilaalin iyo go'aan qaadasho marka uu la midooba shaydaanka waxa meesha ka baxaya isxakamayntii iyo go'aanadii qofka shaydaanka ayaa qofka ka dhaadhiciya in uu isagu xakamaynta hayo laakiin waxa uu diyaarsan qorshayaal kale oo uu rabo in uu ku fusheedo qofkaasi waxa macquul ah qofku inuu ku haminayo haddii uu helo lacag badan oo degdeg ah inuu ku filin doono qorshayaal noloshiisa mustaqbalka ah ee u baahan lacagta taasi marka waxa ay u horseedaysaa in uu ka bixo jidkii uu marayay oo waxa uu noqonayaa sida qof indhool ah oo wadaya gaari akhrinta turubka tarot ayaa sameynaysa micnayaal kala duwan marka ay isku aadaan labadan tiro ee kala ah 7 iyo 15 waa inta ka koobnaayeen magacii ninkii sameeyay iyo Bitcoin macnaha ugu muhiimsan waa inuu qofku yahay mid ku fikira helida awood ballaaran hami badan iyo rabitaano kala duwan taas oo qofka ka dhigaysa mid ku dhaca daminada uu shaydaanku dhigay tani ayaa ka dhigan in maanka qofka ay ka dhex guuxayso dhawaaq iyo hamiga lacag uu heli doono marka uu maalgashigiisu kor u kaco ama cabsi iyo walwal uu dareemayo haddii uu hoos u dhaco waana muhiimadda ugu weyn ee qofka sidaa ku mashquula oo marna ku fikira uuna galo hami badan marna uu ka fikiro khasaaro lacagtan ayaa ku soo biirtay caalamka January 2009 oo ka dhigan 01.2 oo la micno ah hal loo geeyay 2 loo geeyay eber loo geeyay eber loo geeyay 9 oo la micno ah ama ay la mid tahay kaliya 12 waxay la sii micno tahay hal loo geeyay hal waa 3 haddii aad barnaamijyadii hore ee Siraha Tirooyinka aad hore u soo daawatay waad fahmi kartaa waxaan ka sheekeynayno ama taariikhdu marka ay ahayd 9 January 2009 oo ka dhigan 9.1.2 eber 9 oo la micno ah 9 loo geeyay hal loo geeyay 2 loo geeyay 2 eber loo geeyay 9 oo la micno ah ama u sii dhiganta 21 lafteedu waxay noqonaysaa hal 2 loo geeyay hal oo la micno ah 3 u fiirso labada goorba waxay soo baxday 3 waxayna ku xadidan tahay tiradeeda soo saaris iyo ku dhex wareega suuqaba 21 milyan 21 milyan 2 loo geeyay hal still waa 3 isla 21 milyan haddii aad eegto markaynu kala saarno xisaabtan waxay noqonaysaa 2 loo geeyay hal loo geeyay wada eber still isku wadaagay waxay taagan tahay wali halkeedii oo 3 bay taagan tahay isweydii tirada 3 maxaa maxsuul u noqdaa ama maxaa maxsuulka oo u noqdaa lambarka 3 ama waxaad ka fikiraysaa in ay tahay wax iska dhacay oo aan laga soo baaraandegin يعني waxaan laga soo shaqeyn oo iska dhacay ayaad iska aamintay run ahaantii kuma dhihi karo lacagtan waxa abuuray qofkaas ama shirkadaas magacaas leh laakiin waxaan hubaa in uuna wax shaqo ah ku lahayn qofka lagu magacaabo Satoshi Nakamoto lacagtan sideedaba waxa ay heerkan ku soo gaartay waa buunbuunin iyo dad gaar ah oo ku hela dhaqaalo aad u badan xaysiiskeeda iyagoo ku sii dhiirigelinaya maalgashigeeda dadka kale dadkana ayaa ku xidhan dad aad u tiro badan Bitcoin kadib waxa aad u soo batay lacagahan lagu magacaabo cryptocurrency-ga oo maanta tiradoodu ka badan tahay ilaa 20,000 oo nooc laakiin mustaqbalka dhow ama mid fogba sida ay wax isu bedeli doonaan cidnimo oga sida inoo muuqata waxaynu aragnaa inuu gabagaba yahay ama uu dabargo'i ku dhow yahay isticmaalka lacagta ka samaysan waraaqaha taas oo fududeyn doonta in dadku si sahlan loo maamulo maadaama lacagta aan waraaqadaha ka samaysnayn la xakameyn karo dadka waxay ku iibsanayaan ama waxa ay ku sameynayaan lacagta ay aaminsan yihiin in iyagu leeyihiin
dabcan lama xakamayn karo dunida waxa ay u sii dhaqaaqaysaa maalinba maalinta ka dambaysa inuu soo wajaho dhaqaale burburkii ugu weynaa inta la xasuusto taariikhda oo la qorsheeyay waqtiyo hore iyada oo maantana dunida ay ka jiraan dhaqaale la'aan maadaama aynu nool nahay xilligii ay ugu hantida badnayd inta aynu ogaan karno sidoo kalena ugu liidatay nolosha taasi oo markhaati kaaga filan in si kastoo hantida u badan tahay ayna keenayn farxad iyo reerayn haddii aan lagu samaysin wanaagsan